السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكسو دوادا يوتيوب channelka أحمد عسانيع waxaan ku jiray cashiraanteena accountiga ee taxanaha. cashirkana waa cashirkii toddobaad ee chapterka toddobaad. waxaan uga hadlaynay cashirka kan recorded transactions in special journal. transactionada shirkada ee dhacaya ee special journalka journalyada khaaska ah lagu diiwaangelinayo ayaan ka hadlaynay. So far ilaa hadda you have learned to journalize transactions in two columns, general journal and post each entry to the general ledger. This marka waxayna leeyahay ilaa hadda waxaad soo baratay in transactionada la journal gareeyo oo diiwaangelin lagu sameeyo markaasi. marka dee journalka waxaad soo aragtay laba nooc oo maaragtay ayaad soo aragtay. general journalka oo isagaad garanaysid oo horey aan chapteradii hore ugu soo qaadanay, iyo general journalka waxaa lagu diiwaangeliyo oo loo post gareeyo entry walbaba general ledgerka lagu maaragtay lagu post gareeyo amaba lagu wareejiyo. This procedure is satisfactory in only very small business. markaasi dee nidaamka noocan waxaa isticmaalu leeyahay marka aan loo baahanaynin wax journal ah ee keliya la isticmaalayo general ledgerka iyo maxaan ka wadaa general journalka iyo general ledgerka. marka la isticmaalayo waa kaas iyo waxa weeye general journalkaas marka la isticmaalayo waxaa isticmaala shirkadaha yaryarka ah ayaa isticmaala. marka shirkaduhu si ay ugu sameeyaan si ay u jajabiyaan general journalkaas ay u jajabiyaan oo ay isuga soo koobaan oo maaragtay maadaama general ledgerka dhammaan wixii transaction oo dhan u wada galaysaad ogeyd baa marmarka qaar waxay shirkaduhu sameeyaan in ay journalizing iyo postingka labadaba inay isku dayaan inay iska soo koobaan. saas darteed shirkadaha qaar waxay isticmaalaan wax la yidhaahdo special journals ayay isticmaalaan markii in addition to the general journalkii oo shaqeynaya ayaa waxay isticmaalaan special journals oo general journalku waad dareemi kartaa tan iyo magaciisa inuu yahay in book si guud wax lagu diiwaangeliyaa. sida guud ayaa akoonada qaar ayaa loo sameynaya special oo laga saaraya marka general journalka hadhowna lagu soo celin doonaa amaba balansigooda uu ka muuqan doonaa. Companies use special journal to record similar types of transactions. shirkaduhu waxay isticmaalaan special journalka inay ku diiwaangeliyaan waxyaabaha amaba dhacdooyinka activity-ga shirkada ee isku midka ah. Examples are all sales of merchandise on account. waxaa kamid ah tusaale ahaan shirkadu waxay ku diiwaangelinaysaa special journalka badeecada la iibiyo ee lagu iibiyo on account. deynta lagu iibiyo hadday badato waxaa lagu sameeyaa buug gaar ayaa loo sameynaya. sidoo kalena all cash receipts lacagaha soo xaroonaya buug gaara loo sameynaya halkii general journalka lagu diiwaangelin lahaa ee cash debit laga dhigi lahaa. wixii kalena maaragtay akoonka kan la diiwaangelin lahaa waxaa la sameynayaa buug gaar ayaa loo sameynaya halkii general journalka laga geenay special journal baa loo sameyn oo cash receipt aan arkeyna. The types of transactions that occur frequently in a company determine what special journals the company uses. waxay ku xidhan tahay shirkadu special journalka ay isticmaalayso wuxuu ku xidhan yahay dhacdooyinka ama activity-ga transactionada shirkada ee sida frequently alaaba inta badan soo noqnoqonaya ayay ku xidhan tahay mar walba. oo waxaa laga yaabaa shirkadu haddii badeecada ay iibisay on account ku iibisay ay yar tahay ma isticmaalayso special journal. special journalka waxay isticmaalaysaa buuli transactionada mar walba soo noqda. tusaale ahaan haddii cash badanina soo galo oo waxaweye shirkadu shaqeynayso ee aada u shaqeynayso markaas kale ayaa loo sameynaya. laakiin cashkeena hadduu iska yaryahayo marka hadda waxba looma sameynay. waa frequently waa transactions that occur frequently in a company. yacni dhacdooyinka sida alaaba inta badan dhaca ee shirkada ka dhex dhaca ayaa inoo goynaya
special journalkeena wuxuu noqonaya, sababtoo ka aad soo noqonayo baa special journalka la gelinaya, ka kale laakiin aan aad soo noqonin general journalki ayaa la iska gelinaya. Most merchandising company record daily transactions using journals shown in illustrations 7.5. shirkadaha merchandisingka horaan soo qaadanay merchandising company waxay maaragtay ay record gareeyaan transactionadooda ay si maalinle ah u diiwaan geliyaan iyagoo isticmaalaya maxay special journals ka hoos ku qoran. waa ka sales journal, cash receipt journal, purchase journal, purchases, cash payment journal, general journal. General journal, this is the last one baa laga dhigay fiiri, waa general journalkii dhammaantood lagu diiwaan gelinay, laakiin ma ujeedaa kuwani kana laga soo dhex qaaday. kan waa kian hore soo qaadanay chapteradii ugu horeeyay aan kusoo aragnay. Sales journal waa maxay? Usually waxaa loo isticmaalaa for all sales, lacagaha macnaha iibka la sameeyo, dhammaan iibka la sameeyo, for all sales of merchandise on account. badeecada aan iibino in deynta ku iibino hadday badato waxaa loo sameynayaa journal loo yaqaano sales journal. waxa weeye boogii amaba lagu diiwaan gelinayaa saleska iibka lagu diiwaan gelinay. laakiin halkaas waa on account wey, waa on account. haddii laakiin iib intii la sameeyo lacag laga helo oo aan qofkii ka amaahanin waxaa lagu diiwaan gelinayaa cash receipts journal. kaasa lagu diiwaan gelinaya used for waxaa loo isticmaala all cash received, lacagta la helay. all cash received waa lacagta la helay, dhammaan lacagta helay including ay kamid tahay cash sales. waa ka cash kan waxaa hadda loo aqoonsaday inay on account tahay, inay tahay on account. waa inta muhiimkii kana maxaa lagu yiri waa cash sales baa kamid ah lacagaha soo xaroonaya lagaga sheekeynayo. okay, waxaa kaloo kamid ah shirkadu buugta kala isticmaasho waxaa kamid ah purchases journal. ileen agaabtan markay agaabtada iibinaysay labadana tilmaamay. kana waa agaabtii on account ku iibinaysay deynta, kana waa lacagihii soo gelaya loo sameeyay. kan oo kale waxaa loo sameeyay waxyaabaha la soo iibinayay shirkadu ay soo iibinayso, ay soo iibsanayso badeecadii ay sii iibinaysay. markay soo iibsanayso haday badan tahay badeecadii soo iibsanayso waxay sameynaysaa purchases journal oo special ah. one special kamid ah used for waxaa loo isticmaalaa all purchases of merchandise on account, dhammaan badeecadaha la iibiyo ee on accountiga lagu iibiyo. waa intaas wey. waxaa kamid ahaa oo iyadana la diiwaan gelinayaa oo haddii ay badato special journal la yidhaahdo cash payment journal loo sameynayaa. lacagaha baxaya naga baxaya hadday bataan dee waa in loo sameeyaa maaragtay halkii general journalka lagu diiwaan gelin lahaa un lacag baa naga baxday waxaan ku bixinay mushaar wixii noocaas ah. waxaa la sameynayaa buugana la isticmaalaya oo shirkadu sameysanaysa. buugan maxaa loo yaqaanaa cash payment journal. lacagaha naga baxaya halkii dee lagu diiwaan gelinay bay noqonaysaa. marka used for waxaa halkana loo isticmaalaa cash paymentiga all cash paid, lacagaha la bixiyay, dhammaan lacagaha la bixiyay including waxaa kamid ah cash purchases baa kamid ah. cash purchases waa purchase kanada on account soo ma ahayn. kani on account waa sida kii hore oo kale. kana waa maxay tusaale ahaan waxaa lagu soo iibsaday badeecadii cash baa lagu soo iibsaday. marka purchases journal ma gelayay cash payments buu dhex galayaa haddii cash lagu iibiyay. haddii lasoo amaahdayna purchases journal ayaan aqoonsanaynaa. general journalku muxuu yahay? used for kan horaan soo aragnay transactions that cannot be entered in special journal. waxaa lagu diiwaan gelinayaa markaa transactionada aan loo isticmaali karin special journalka including waxaa kamid ah correcting, waxaa kamid ah adjusting, waxaa kamid ah closing entry. waxaan kusoo aragnay markaasi chapteradeenii hore ayaan kusoo aragnay. waa tahay marka intaasi theory-ga ah idinka wixii theory iska akhrisan, anigana time-ku waa igu yaryahay waxaana rabaa casharadu inay socdaan. buugga dhan markaa ma wada dul mari karo, wixii theory waa inaa iska akhrisan. maxaa inoogu horeeyay sales journal. sales journal ayaa inoogu horeeyay. saacaddu maxay maraysaa 9 daqiiqo. sales journalka ayaan bal xoogaa yara dul maraynaa.
haddii ilaahay yidhaahdo sales journalka ayaan dulmaraynaa. In the sales journal, companies record waxay ku diiwaan gelisaa sales journalka sales of merchandise on account, kuwaas oo ama badeecadaha ay shirkadu ku iibisay deynta ayay ku diiwaan gelisaa. haddii markaa cash sales of merchandise yacni lacagta laga helay iibka badeecadu go-in waxay aadaa the cash receipt journal. horan kugu sheegay inta haddii lacag la qaabtay markii badeecada la iibiyey sales journal ma gelaysa, maxay gelaysaa cash receipt journal, receipts journal bay gelaysaa. laakiin credit sales of sidoo kale of assets, yacni asset kale haddii ay shirkadu iibiso waayahay other than merchandise, halkay shirkadu merchandise-ka iibinaysay badeecadii, hadday shirkadu cashka ay iibiso asset kale oo markaasi aan ahayn badeecadii ama inventorygeedii aan ahayn, go-inkaasina wuxuu aadayaa general journal ayuu tegaya. marka specialka ma imanayo maadaama asset kale uu yahay. waxaan laga hadlayaa sales journal marka lagu leeyahay waa in waxaan yahay merchandise oo ka waa in merchandise yahay. hadduu asset kale yahay general journal ayuu tegaya, special journal ma imanayo, general journalka toos u aadaya. okay, marka waxaa jira waxa la yidhaahdo kow marka horeysa in la sameeyo journalizing credit sales. in credit saleskii maaragtay journalize lagu sameeyo ayaa marka journaliska adaa iska aqrisanaya. to demonstrate use of sales journal we will use data for carnes wholesale. shirkadan ayaan markaa isticmaalaynaa uses taasoo isticmaasha perpetual inventory system ay isticmaasha under this system. markii la yidhaahdo each shirkadan markaa waxaa muhiima intan waa kan qalinka waa kan booldiga lagaaga dhigay waxay isticmaashaa perpetual inventory system. horaan soo dhigana perpetual inventory system shirkadda hadday isticmaalayso oo ay iibiso badeecadaasi hal meel ah lama diiwaangelinayo. lacag ba ay soo gashay iyo inventory iga baxay lama diiwaangelinayo. dhanka kale waxaa la diiwaangelinayaa shaygan aad iibisay qiimuhu markii hore kugu joogay waa in isagana aad sheegtaa. saas darteed buu ku leeyahay perpetual inventory system ayay shirkaddu isticmaalaysaa. each entry in sales journal results in one entry. mar walba oo la sameeyo maaragtay iib la sameeyo shirkaddu markaa entryga sameynaysa muxuu noqonayaa at selling price, qiimaha hadda lagu iibiyey, iyo entry kale oo la yidhaahdo other entry oo ah at cost, qiimuhu kugu joogay. intaan waan iska garanaynaa, intaasi waan garanaynaa oo horaan usoo dhiganay. the entry at selling price is a debit to account receivable. selling price marka la yidhaahdo waxaa la diiwaangelinaya maadaama shaygan amaah laynaga iibsaday, waxaan odhanaynaa account receivable baan meesheeda qoraynaa maadaama cash uunan ina soo gelin. waa control account way waad garanaysaa horaad soo dhigatay. under the credit of equal amount to sales revenue, lacagtaasi la geliyey account receivable-ka lacag la-eg ayaa dhanka kale creditka la gelinaya oo ah sales revenue. marka account receivable sales revenue labada account xagee ka imanayaan at selling price-ka ka imanayaan, qiimaha hadda la siinayo. at cost-gana qiimuhu inagu joogayna the entry at cost is a debit to cost of goods sold. cost of goods sold ayaa la debit garaynayaa agaabta la iibiyay qiimaha inagu joogtay markii hore. and it credit waxay credit garanaysaa marka a credit of equal amount of inventory. sidoo kale lacagta la mid ah oo waxa weeye cost of goods sold lacagta la geliyay lacag la mid ah ayaa maaragtay la gelinaya inventory-ga. shada la ilaha illallah. a control account using a sales journal, iyadoo la isticmaalayo marka sales journal with two amount columns, iyadoo maaragtay la isticmaalayo laba column. two amount columns waa maxay? laba column. the company can show the only one line a sales transaction is at both selling price and the cost. gudaha ayaan ku arkaynaa illustration kan ayaan ku arkaynaa 76ka shows these two columns sales journal of carnes whole sales supply shirkadda magaceedii way wax kani using assume credit sales transaction is for sales invoice, iyadoo maaragtay kaas isticmaalaysa ayaan arkaynaa
insha allah wixii nidkaadu iska akhriso bal aan soo saaro markaa aan soo saaro journalisku waa general ledger software for accounting ayaa lagugu tusayaa maaragtay sales journalkii hadhow waa la post garaynaya laakiin hadda sidaana loo diiwaan gelinaya markaad sales journal sameynayso waa special key oo sales journalka loo yaqaanay qaybtii u horreysay macnaha kii u horreeyay so markaa halkaasi numberkaad kala soconaysaa xagga maxaa lagu yiri datekaad qoraysaa dateka markaad qortid accounti debited accountnada waa kala gaar accountnada waa accountno debit ah accountnana waa accountno credit ah marka waxaad leedahay accounti debited ayaad xagan ku qoranaysaa xaggan kore waxaad ku qoraysaa invoice numberka waa kii hadda uu kuu sheegayo wax kala maaha invoice number baad qoraysaa waad ujeedaa waa kan 101 107 saasoo ilaa 107 ka invoice-yada 1 2 3 4 5 6 7 markaasi waa 7da invoice bay noqonayaan marka 7 jeer baa markaasi ama wax soo iibso ama wax laga iibsado ama wax soo iibso midka doona ha noqday baa dhacay marka shirkadu markaasi bal u fiirsa hadda xaggan maxaa ku jira marka waa reference weeye kama arki doonaa hadda wax lama gelin marka la post garinaya meeshan la gelin doonaa waxaan akhriyay waa theory la socaya theory xaggan ku jira ayaan akhriyayaa theory waa posting the sales journal hadhow markaan gelinayo theory ahaan unbaan ku akhriyayaa waa kan journalism credit sales intaan hadda ka sheekeynayna Soomaali ku sheegaya waa isla intan waa kan account receivable waa qaybtii at selling price way la soo qaybtaasina waa maxay waa at cost at selling price waa maxay waa account receivable DR bugalaya waa sales revenue CR bugalaya marka amountigan bay wada qaadanayaan waa inaad saas la socotaa cost of goods sold waa at costigi waad garanaysaa DR inventory na CR buu ahaa isla costigi unbuu ahaanaya so May 3 shirkadaas Apport Sisters la yiraahdo maxay samaysay marka waxaan ka iibinay invoice-ka 100 ahayna waa isticmaalayna waxaan ka iibinay 10600 ayaa shirkada laga iibiyay 10600 ee shirkadaasi laga iibiyay waxaan kaga iibinay maxay on account ayaan kaga iibinay deyn ayaan kaga iibinay on account so marka waxaan leenahay waxaan diiwaan gashanaynaa account receivable keenu 10600 weeye sales revenue keenu waa CR sales revenue waa maxay waa CR okay shayganan iibinay qiimihiisa hadda aan siinay 10600 qiimihii hore nagu joogay masoo aha 6360 buu ahaa lacag badan baa ka faa'iido halka cost of goods sold iyo inventory ayaa la diiwaan gelinayaa so May 3 bay soo maahayn May 7 Papson Company ayaa waxay invoice-kan iyadoo inoo isticmaalayna waxay naga iibsatay 11350 iyaduna maxay naga iibsatay at selling price-kii weeyaan hoos joognaa waxay naga iibsatay on account cash nama siinin on account bay ahayd laakiin shaygan 11350 ka siinay imsu inaga nagu joogay at costiga markaan eegno wuxuu nagu joogay 7370 marka haddii si caadi u journalist garay lagu yiraahdo sales journal baa hadda joognay oo si caadi aad u qortid aad isticmaalin sales journal waxay noqonaysaa inaad isticmaasho cost of goods sold iyo sidoo kale inventory iyo kuwan oo wada socda marka account receivable sales revenue oo wada socda 14 bisha Carson Prosmia waxa shirkadaasi ayadoo invoice-kaas aan isticmaalayna waxay naga iibsatay 7800 badeecad qiimaheedu tahay 7800 qiimaheedu inuu joogay waa waxay ahayd maaragtay markii hore waa cost of goods sold way marka 5070 ay nagu joogtay inagana waxaan siinay 7800 baan siinay 19 bisha Daily Company shirkada iyadii oo 104 invoice-ka inoo isticmaalna waxay naga iibsatay 3300 qiimuhu nagu joogay muxuu ahaa 6510 marka diiwaan gelinaysid labada account baa isticmaalaysaa at price-ka markaad ku diiwaan gelinaysid at selling price-ka at cost-igana labada account baa isticmaalaysaa isla amount-iga unbay wada leeyihiin labada account kor ku yaalay haday kuwan yihiin isla amount-iga marka aad marayso unbay wada leeyihiin okay
markay maraysay bisha 21 shirkadii Abbott Sisters ahayd oo bisha saddexdeedii waxa weeye inaga qaadatay lacag 10,600 ayaa maxaa dhacay marka bisha saddexdeedii markay ahayd inaga qaadatay ayaa bisha 21deedii markay marayso 21deedii markay bisha marayso maxaa yimiday waxay naga iibsatay 15,400 oo aan accounti ah ayay naga iibsatay badeecad qiimeedu gaadhaysa ayay naga iibsatay badeecadaan iibinay 15,400 siinay waa imisa waa 10,708 mar labaad baan shirkadii ay wax naga iibsatay Daily Company shirkadaas iyadii waa mar labaad iyaduna soo noqotay waxay naga iibsatay agab qiimaheedu tahay 21,210 oo qiimaheedu inagu joogay markii hore inagu soo siisanay 15,900 shirkada la yiraahdo Papson Company mar horaan iyadana aragnay imkan waxay naga iibsatay agab qiimaheedu tahay 14,530 marka dhanka qiimaha inagu joogto la eegna uu yahay 10,200 hadaba intan isku soo wada geynaysaa xagan maxay noqonaysaa waa 9,230 qiimaha inagu joogtay agabtana dadka iibinaynay imsoo noqonaya 62,190 marka meesha hadda faa'iidadii baa ku dul saaran qiimahan hadda siinay la isku geeyay iyo qiimaha marka hore inagu joogeen oo maaragtay la isku geeyay weeyaan marka de kulli Excel baan isticmaali karaa oo haddii aan u baahano Excel ayaan isticmaali karaa inkastoo de ay waqti qaadanayso haddii la yiraahdo Excel ha la isticmaalo inkastoo ay waqti qaadanayso laakiin haddana Excel baan isticmaalaynaa okay aan iska sii wado Excel haddaan nidhaahno aan isticmaalo de Excelka waa iska fudud yahay Excelku iska fudud yahay sidan uu hadda ugu diyaarsan yahay noocan uu hadda ugu diyaarsan yahay baad u diyaarsanaysaa date account debited halkan aad ugu baashanaysaa salahan date-kii waxaa ku qoraysaa account debited-kii aad durkinaysaa kan laftiisu wuxuu u baahan yahay isaga barasho u baahan ba qofku inuu garanayo Excelka marka waad u isticmaali karaysaa Excelka okay intaasi markaan isla fahanay aragnay habka loo journalist gareynayo waxaa jira maaragtay in la post gareeyo waa journalkii caadiga ah oo de account-nadii ba kor kala mariyay account receivable sales revenue halka la isku hoos qori lahaa 10,600 lagu qori lahaa ka kalena 10,600 xaga kalena la qori lahaa cost of goods sold iyo inventory oo isla intaa una mid walba intaa la gelinayo waxaan sameynay iyagii account-nadii ba kor kala mariyay saas ula soco so marka post waxaan sameynaa hadda waan post gareynaa kuwan ayaan isku daynaa post gareyno reference-ga wuxuu guuri is not used in journalism marka lagu jiro lama isticmaalo reference-ga waa kan reference waa kaas weeye lama isticmaalo isaga iska jir laakiin marka la isticmaalayo posting ayaa la isticmaali doonaa it's used in posting the sales journal marka la post gareynayo si loo ogaado in next section ayaa marka ku sheegaynaa buu leeyahay marka waa kan marka wax la post gareynayo marka posting maxaa lagu sameynayaa hadda kani waa maxay sales journal soma waxaa la geynayaa general ledger ayaa loo post gareynayaa so companies make daily posting from the sales journal to the individual account receivable shirkaduhu waxay sameeyaan si maalinle ah ayay u sameeyaan posting from the sales journalkan ayay posting ku sameeyaan oo xagay u post gareeyaan to the individual account receivable gudahaan arkayna insha Allah account receivable-da individualka ah ayay maaragtay markaa ku post gareeyaan in the subsidiary ledger-ku waa imika si guud 92,230 bay ahayd so that dhammaantood bal isku wada geey markaa individual baa loo sameynaya shirkad walba wixii lagu lahaa gaar ayaa loo post gareynayaa posting to the general ledger-ka in wax lagu post gareeyay is done monthly si bilo ah ayaa wax loo ayaa shaqada loo qabtaa illustrationka 77 page-kiisu uu yahay 320 shows wuxuuna tusinayaa both the daily and the monthly posting si maalinla isagoo loo maaragtay loo post gareynayo isagoo si loo post gareynayo maxaan ku dhahdaa bilo ah loo post gareynayo
waxyaabaha muhiimka ah un baan ku tataabanaya ada theory-ga akhrisanaya waana qasab way isku xidhan yihiin. Check marki calaamada nooca is entered ayaa la geliyay in reference columns to indicate maxay cadaynaysaa that the daily posting to the customer's account has been made. Haddii aad aragtid iyada oo check markiga lagu siiyay calaamada saxitaanka ah waxay tilmaamaysaa daily posting sida maalinlaha postingkii loo sameynaya dee customers accountigii in la sameeyey ayay ina tusinaysaa. Marka if the subsidiary ledger accounts were numbered, hadday number leeyihiin the number would be entered in the place of the check mark. Hadday number leeyihiin de halka check markiga loo sameynaya ayaa ka dhigan tahay waa la post gareeyay numberkiisi baa la gelinaya kaasoo isaguna cadaynaya in la post gareeyay. insha allah wixii theory-ga idinka ayaa iska akhrisanaya. dhanka kale waxaa kusii xiga proving markii la post gareeyo table-kan idin tusaya. marka waxaan u socda waa table-ka waa la post gareeyay kabacdi markii la post gareeyo haddana waxaa postiga waa taqaanay general ledger-ka markii wax lagu soo post gareeyo trial balance-ga ayaa eegi jiray in balance-gu account-nadu markii la isku wada geeyo debit iyo credit inay isku mid yihiin ama siman yihiin. trial balance-ga maadaama oo general ledger-ku uu ahaa individual accounts lagu diiwaan geliyo mid walba balance-giisii watay balance-yadaas la soo qaadanay wixii credit baa la gelinay wixii debit baa la gelinay and then balance-gooda la isku eegay inay isla ekaadaan bay ahayd. marka proving the ledgers individual ledgerskii la sameeyey ayaa maxaa la sameynaya waa la eegaya inay isla eg yihiin iyo inayna isla ekayn debit iyo creditku. intaas ayuu ka hadlaya ciwaankaasina. kana wuxuu ka hadlayaa advantages of the sales journal maadaama saas lagu dhameeyay hadda faa'iidooyinkiisa ayuu ku sheegaya iyada theory-ga soo akhrisan. waa kan walo fiirso kani waa sales journal-ki markii hore aan ku tusiyay shirkad way isku dhaxdaadsan shirkadihii si guud xataa amount-iga aad aragtid ee ah qiimaha aan siinay agaabta ee deynta inoo maqan account receivable-ka iyo qiimihii nagu joogay shirkad meehe shirkadaasi Abbott Sisters mar bay soo noqotay mar labaad bay wax naga iibsatay. shirkada kale tusaale ahaan Dell Company 2 jeer bay wax naga iibsatay. Carson iyada hal mar bay wax naga iibsatay. Papson Company 2 jeer way isla wada leeyihiin. so marka waan post gareynaa fiiri xagee lagu post gareynaa amount-yadan aan qaadaynaa shirkadii waa kuwan Abbott Sisters kuwan maxaa loo yaqaanaa subsidiary ledger-kii wey waa la kala saaraya. shirkad walba shirkad 2 jeer wax qaadatay akoonkeeda gaar buu ahaanaya oo fiirso Abbott Sisters kan marka daily baa loo qabtaa general ledger-ka isaga markii lagu post gareynayay balance-ga la qaadayo shirkad walba maaragtay balance-geeda la rabo in la soo saaro iyo wax lagu leeyahay individual aan la duwan geliyo waa daily laakiin waa monthly laakiin kan daily baa loo qabtaa. the company posts individual amount waa kuwan amount-yadii baa gaar shirkad walba waxay lahayd iyo wixii lagu laaba gaar loo sheegay. so marka shirkad waxay sameynaysaa subsidiary ledger daily ayay u post gareysaa. waa kan hadda eeg fiiri calaamada soo raac ta u horeysa maxaa la yidhi Abbott Sisters oo tan ma Abbott Sisters imsa jeer bay wax qaadatay intii jeer baa in loo qoraa gaar baa lagu diiwaan gelinaya amount-ga marka waa la qaybsanaya shirkad walba amount-geeda meel buu taagnaanaya hadhow baa la isugu geynaya. 2 jeer bay ahayd waa bisha May 3 iyo sidoo kale May 21 labada jeer wax qaadatay waa tan May 3 iyo May 21 S1 iyo S ada arki doono kuwana wax laga wado theory-ga hadaad akhrido maxaa laga wadaa waa arkaysa waa reference-gii loo sameeyay weeye waa sales journal 1 oo wax kale ma aha sales journal 1 weeye. okay subsidiary journal 1 marka subsidiary-ga ayaa maartay number-ka loo sameyn tusaalihii hore hadaan ku noqon waxa laga yaabaa inaan aragno hadaan raadinay inaan aragno laga yaabaa marka idinka theory-ga iska akhrisanay waa deegaysan laakiin waa number reference ah oo loo isticmaalayo weeye markaasi. so 10600 marka waxaa loo sameeyay debit iyo credit iyo balance 10600 halka balance-ga iska gasho debit bay ku jirtaa balance-gana ha gasho si halka balance-ga hadhow lagu ururiyo 21 bisha 15400 bay shirkadu qaadatay bay ahayd oo taas marka la isku geeyo maxay noqonaysaa labadooda balance wuxuu tilmaamayaa labadooda isku geey wuxuu noqonayaa 26000 shirkada kaliya
$9,230 maxay ku lahayd $26,000 bay ku lahayd. Okay, shirkadaha kalena saan baa loo soo wadayaa. Shirkadan Babson 2 jeer bay ahayd, May 7deedii iyo 27deedii waxay ahayd $11,350 May 7deedii, waxaa 27,000 bishii May 27 bishii markay maraysay 14,570 bay ahayd. labadan markii la isku geeyay balance wuxuu noqonayaa 25,920 ayuu noqonayaa. shirkada Carson Partners shirkadani hal mar bay xnig iibsatay, balance-ga lagu leeyahay 7,800. shirkadan fallaadhan waa inaad fahantaa meesha laga keenay. Tani waa 2 jeer tii laba fallaadhood oo meesha ku taala, May 19 ilaa 24 9,300 21,000 iyo 210. kaasi marka muxuu noqonayaa waa individual subsidiary accountski ayaa maxaa lagu diiwaan gelinayaa, waa individualka offerso individualki wey. marka de subsidiary ledger daily ayaa laysi maalin lahaa. hadday adana shirkadda wax naga iibsato, tusaale ahaan Abbott ay wax naga iibsato shirkadda la yidhaahday, haddana fallaar saddexaad baa meeshan kusoo biiri, wixii ay labay ay haddana mar saddexaad naga iibsatay sida kuwii loo diiwaan geliyay baa date-kii la qorayaa oo la diiwaan gelinayaa, kadibna balance-ga waa lagu darayaa. kaasi waa maxay markaa? kaasi wuxuu tilmaamayaa individualki weeye. laakiin marka general ledgerka lagu post garaynayo si bila loo post garaya, at the end of the accounting period the company posts waxay post garanaysaa total to the general ledger. totaliski ay qaadaysaa general ledgerka ay shirkadu geynaysaa. u fiirsan markaasi waa 4 account way: account receivable, sales revenue, cost of goods sold, inventory. 4 account receivable, inventory, sales revenue, cost of goods sold. so much marka maxaa la sameynayaa? account receivable-ka waxaa lagu diiwaan gelinayaa, account receivable-kaas waxaa lagu diiwaan gelinayaa balance-ga bes. balance-gaas aad qaadaysaa 9,230 oo ka debit-kaad gelinaysaa, balance-giisan intii baad u gelinaysaa. account kale wixii muxuu ahaa isaga ay si wada socdeen waa sales revenue. sales revenue isla intii baad gelinaysaa, aw sales revenue waa kaas isla intii baad gelinaysaa. fallaadho ku soo qaaday soo soco kan inventory-ga soo dhaaf. sababta loogu xijisiiyay account receivable-ka waad garanaysaa. hadda markii wax la diiwaan gelinaya asset-ku israaci jiray sales revenue kaas. labadan kalena waa la mid oo 62,190 ay haysteen unbaa cost of goods sold-gana lagu diiwaan gelin, inventory-gana unbaa lagu diiwaan gelin. sales revenue laakiin credit buu ku jirayaa, credit buu ka badanayay, balance-giisina waa kaas. habkaasi ayaa loo diiwaan gelinayaa oo loogu post garaynayaa. postigana marka waxay ka dhigan tahay account-nada ayaa maaragtay balance-gooda la soo qaadanaya, sida kuwan balance-gooda aan hadda soo qaadanay 2 account iyo 2 account 4 account baa la soo qaadanaya balance-gooda. balance-goodana 2 account isla kan buu noqon, mid walba balance-giisu kan buu noqon, labadana mid walba balance-giisu kan buu markaa noqonaya. so inshallah waxay noo xigi doonaa cash receipt journal kan muuqaalka ugu dheeraadaan filayaa. intaan cash receipt journal-kana aan cashir ku xiga kulmaynana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.